السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داودا ميل والبو aad naga daawanayso Talax Media fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saaro saad ula socoto barnaamij walba halkan aan ka soo deynaa. Waxaan maanta idii wadnaa qiso jacayl oo aad u xiiso badan. Qisadani waxay ka dhacday dalka Koonfur Afrika. Waxaan ku dhashay deegaanka Maxaas ee gobolka Hiiraan. Waxaan ku soo barbaaray isla deegaankaas. Waxbarashadeedii hoose dhexe ayaa waxaan ku soo qaatay isla deegaanka Maxaas. Sanadka markuu ahay 2000 ayaa waxa imaaday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. halkaas ayaan ku soo qaatay waxbarashada heerka dugsiga sare. Sanadka markuu ahay 2005 ayaa waxaan xal u arkay inaan iska tago dalka Soomaaliya si aan wax u qabsado. xilligaas waxaan aad u xiiseyn jiray dalka Koonfur Afrika. nasiib wanaag sidii ay rajadeedu ahayd ayaan helay, isla markaana waxaan noqday ruux ka shaqeysta magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. muddo kadib ayaan khadka waxaan ka bartay gabadhaas oo noqon doonto mid iga fajacisay. markii ugu horeysay oo aan khadka isku aragno ayaan bilownay dagaal xoogan, wuxuuna salka ku hayay adiga ayaa igu soo darsaday iyo inkaar Allah kugu rido. dagaal khadka ku eg kadib ayaa waxaan noqonay laba qof oo si wanaagsan isku barta. waxay ii sheegtay in Naciima la yiraahdo, anna waxaan u sheegay inuu magaceegu yahay Salaad. muddo 2 bilood kadib markaan khadka ku wada sheekaysanay ayaan waxaan Naciima u arkay inay tahay gabar furfuran oo dabeecad wanaagsan leh. kadibna waxaan xal u arkay inaan sheeko la wadaago, isla markaana waxaan Naciima u soo bandhigay in aanu noqono laba ruux oo sheeko wadaag ah. wixii inagu soo kordhana ayaa waxaan ugu baaqay inaan isku afgaranno sidii ay Naciima iga aqbashay. xilligaasna waxay ku nooleed caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. waxaanu bilownay inaan hawada isku dhaafsano dhambaale ay ku qoran yihiin erayo wanaagsan oo laabta u roon oo raahyo macmacaan oo indhaha akhriskooda aysan ka daalin. waxaan dhihi karaa Naciima waxay ahayd boqoradii hanatay qalbigayga, iyadoo inoo xigtay inaan khadka isku balansano si aan isu aragno shaashada kaamirada. aragtidii aan Naciima arkay waxaa noqday ruux ay ku furmaan mawjado kala duwan, kuwa oo ku aadan sidii Naciima aan gacanta uga dhigi lahaa iyo sidii aan ku adkeyn lahaa xiriirkii naga dhaxeeyay. waxaan Naciima isku afgaranay inuu ina dhaxmaro jacayl diiran. sidii ayaanu yeelnay. markii ay Naciima igala hadlaysay khadka ayaan waxaan ahaa in ku soo ceshashta erayadii macaana ee gacmaheedii igu soo qortay. xaqiiqdii ebad maanan arag gabar ka sheekeeya qosol macaan, ilaan ruux aad jeceshahay malab buu kala macaan yahay. runtii waxay ahayd gabar si weyn ii soo jiidatay, anna waxaan ula dhacay si kaliya laab leh. Naciima waxay ii soo bandhigtay inaan ka soo qaado dalka Kenya si ay u soo gaarto dalka Koonfur Afrika, kadibna aan ku aqal galno caasimadii hore ee Koonfur Afrika ee Johannesburg. inkastoo aan anigana ku noolay magaalada Cape Town, codsiga ay ii soo bandhigtay gabadha aan ifka ugu jeclahay ayaa runtii u riyaaqay. waxaanu xilligaas ahaa nin lacag iska haysta, waxaana u diray lacag dhan $3,500. waxaan iska soo iibiyey goobo ganacsi oo aan ku lahay magaalada Cape Town si aan u aado magaalada Johannesburg, kadib aan ula aqal galo gabadhii aan ifka ka soo xushay ee Naciima. sidii ayaan yeelay, balse maxaa dhacay? alle wuxuu qadaray in Naciima oo nabad qabta ay soo gaartay dalka Koonfur Afrika. waxaana Naciima ku sugayay goobaha ay gawaarida ku soo xirtaan ee bosteejada. markaan arkay aragtidii Naciima ayaan ku farxay, waxaana iga soo fuqday neef weyn. hase ahaatee isla goobtii bosteejada ahayd ayaa waxaa Naciima ku sugayay 3 gabdhood oo aan dhihi karo waa shayaadiin. Naciima ayaa gees iskula soo baxnay. markaan wada hadalnay muddo 5 daqiiqo ah ayaa waxaan aragnay gabdhihii oo gacan haatinaya. waxayna igu tiri 5 daqiiqo isug, gabdhahaas ayaan aqaanaa oo aan soo salaamayaa. 10 daqiiqo ku dhowaad ayay iga maqnayd, wayna ii soo laabatay. waxayna igu tiri waxaan kaa qabaa shaki oo armaadan ahayn Salaad. intaan carooday ayaa waxaan ku iri haa waan ahay Salaad ee si fiican ii fiiri. waxay igu tiri waan ka xumahay oo intaan soo kala ogaanayo iga warsug, anaa ku soo wici doonee. yaab iyo makaag ayay igu noqotay. waxaan sameeyo ayaan garan waayay. xitaa haddii aan dagaalami lahaa sharci wadanka kuma lihi. waxaana xal u arkay in aan iska fasaxo. waxaana sidaas ii gelaysa gabadhii aan xarumahayga ganacsi daraaddeed u soo iibiyey, isla markaana xitaa maysan ii mahadcelin. haddana garan maayo Naciima meelaan u raadiyo, waayo dalkani waa dal aad u ballaaran. kaaga darane xitaa ma xasuusta sidee u yaaleen muuqaalkii 3dii shayaadiin ee gabadhayga watay. magacyadooda iyo taleefanadooda iskaba daaye. ugu dambayntii markaan waayay Naciimo ayaan waxaan bilaabay inaan halhees ka dhigto, ilaan dumarka qaar waa bahalo. taasi waa qisadii ku dhacday wiil